أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. waxaan u mahadcelinayaa dhalinyartii soo qaban qaabisay barnaamijkan aadka u qiimo badan ee fariidka ah nuguna cusub munadamatul ihsaan iyo howlwadayaasheeda mudiirka tanfiidka ibnu sayd baarak allah fiikum. intaa kadib runtii waxaad i weydiisay su-aal aada u adag waqti badanna u baahan. ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku leeyahay wadakir bilqur'aani man yakhaafu fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid. micnaheeda waxaa weeye waxaad ku waanisaa qur-aanka ku waani qofkii goodigayga ka cabsanaya. marka wax ka saameyn badan qur-aanka oo qofka qalbigiisa oga saameyn badan ma jiro wey. kitaabka qur-aanka bidaayatan ilaa nihaayatan aayad kasta oo aad u fiirsato macaani fara badan baad kala soo dhexbixi kartaa hadduu ilaahay ku fahansiiyo. saameynna way ku leedahay qalbiga. saameynta qur-aanka kariimka waqtigiisii iyo ka hadalkiisa mowduuc kaleeto in loo caqiido ayay noqonaysaa. laakiin haddii la yidhi aayad un soo qabso ayadoo iska culus tahay. waxaan ku jirnaa bisha ramadaan dhowr habeen ka hor ama hal habeen ka hor waxaan ku tukanaynay taraawiixda. ilaahay subxaanahu watacaala ha noo soo celiyo masaajidii iyo jamaacaadkii. guriga waxaan ku tukanaynay awaakhirka suuratu anfaal. waxaa i soo jiitay oo saameyn fara badan ku yeeshay qalbigayga ilaahay subxaanahu watacaala qowlkiisa uu yidhi وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu ka sheekeynayay haddii aad rabto inaad ogaato saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ay isku jecel yihiin iyo sida nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u jecel yihiin ay u dhaafsiisanayaan naftooda ay ugu hurayaan maalkoodii iyo ehelkoodii iyo aabbayaashoodna ay maaragtay u dhaafsadeen. sababta keentay ayuu dad badan isweydiin karaan. nabigu muxuu siiyey saxaabada ilaa uu u gaarsiiyey heer ay guryahoodii ka soo tagaan, ay nin iyo aabbihii isdilaan, magaalooyinkoodii ay ka qaxaan, asagana ay naftooda ka jeclaadaan. aayaddan ayaa micnaheeda ayaa su-aasha kaaga jawaabaysa. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. إله سبحانه وتعالى أساق اسكدمي صحابة قلبيضة أساق اسكدمي مؤمنين تقلبيضة أساق اسكسجيد. أما أنت يا محمد لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. محمد وأذيقه صلى الله عليه وسلم حدي آد بحسو وتكب بحسو adduunyada waxa yaallo oo dhan oo xoolo ah, adduunyada muggeed oo dhaqaale ah, haddii aad ku bixiso inaad quluubtooda isku dunto maa allafta bayna quluubihim. ma kuu suurtageli lahayn inaad qalbiyadooda isku dunto. ruux kasta oo aad istiraado xoolo ku soo jiido waxaad doonta si weligaaba afka baruur iyo u geli wuxuu jecel yahay oo idin. maalintii ay si wax kaa noqdaan asoo ku lacanada hayo oo maaragtay ayaad arkaysaa. haddii kaleeto waxaaba macquula waxaan la siinayaba inuu u arko masdarkaba inuu asaga la wareego adiga inqilaab uu kugu sameeyo. marka yacni ilaahay subxaanahu watacaala ayaa awoodda leh inuu isku dumo qulubta. siyarka markaad akhrinayso waxaad arkaysaa mawaaqif cajiib ah oo jaceylka ay isku qabeen saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ka turjumaya. muhaajiriin baa yimid way soo qaxeen. hijradu waa qax weeyaan macnaha maaragtay hadda xadiifiga ah. waxay ka soo qaxeen magaaladii ay deganaayeen, xoolahoodii bay ka soo tageen. ilaahay baa ku tilmaamay inay fuqaro ahaayeen markay imaanayeen magaalada madiino. lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waa ku ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi. markay imaadeen waxay soo duldegeen, dad bay soo duldegeen. dadkan ay soo duldegeen ma yaqaanaan
xiriir horoo ka dhexeeyeyna ma laha wax kaleeto oo ay maaragtay wax kaga iibsanayeenna ma leh way soo dhoweeyeen markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa kuwan imaaday ee qaxootiga ah ruuxan maxay noogu soo qaxeen manaafidii risqiga oo dhan bay adkeeyeen maciishadii bay nuu adkeeyeen ka hosi ma leh yu'thiruuna calaa anfusihim wixii ayaga ay haysteen waxayba ka doorbidayaan inay ayaga siiyaan saasayna ku faraxsan yihiin ilaahu heerka uu la gaaray saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam muhaajiriintii iyo ansaartii markii uu walaaleeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam si muhaajiriinta u dejiyo aakhaa bayna muhaajirin wa ansaariyin markaasaa waxay gaadhay inuu dhaho saxaabigu inuu dhaho ansaariga ah inuu dhaho walaalkayow labada xaaseen qabo mid aan ku furo yani maxaa keenay arrinkaas ilaahay subxaana wa tacaala baa keenay markay si dhaba ilaahay subxaana wa tacaala ooga cabsadeen ayuu alla wuxuu ugu bedelay inuu quluubtooda isku dumo taasaana u noqotay horseed nasriyadii faraha badnaa iyo guulihii faraha badnaa ee kadib ay gaadheen ummaddii muslimiinta ahayd ee xeerkaa joogtay haddii hadda marka hadda la gaadho haddii hadda ilaahay subxaana wa tacaala xaqa taqwa laga cabsado waxaa imaanaysa inuu ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta isku dumo quluubtooda asaga unbaa awooda ruux kaleetoo awooda ma leh low anfaqta maa fi lardi jamiican ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إلهي سبحانه وتعالى بأسكو صدمي إنه عزيز حكيم الله وميد غالب ومارت حكيم أو فلسا ومارت وحكسته بمشي صديقة آيات آيات فربضا أي إسو جيدنية هذا بالله التوفيق وجزاكم الله خير الحديث على فؤادي إنني أرجو الجنان بحب أهل الميمنة أعيد الحديث على فؤادي إنني أرجو الجنان بحب أهل الميمنة أرجو الجنان بحب أهل الميمنة